Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada shabakadeeda aan ku leeyahay barta YouTube-ka Somali Code. Maanta waxaan idin wadaa if statement condition Python. Waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago aan idinla qaybsado waxaan ka garanayaa waxaan xooga ka hayo Python insha Allah. Casharatan hore noogu soo socdeen series gaayeen. waxaan maanta maraynaa conditionska insha Allah. waxaan idin tusayaa conditionka laba nooc ayadoo oo aan marka hore aan isku checking garanayno xurufo anagoo isticmaalana variables iyo waxaan kaloo sameyn doonaa calculator insha Allah. waxaan ku xiji doonaa dictionary uu ku leeyahay dhinaca Python-ka. marka hadeer waxaan baranaynaa wax la yiraahdo condition statement. marka waxaan qaadanaynaa xarafka la yiraahdo a oo noo wadaayo 100, xarafka la yiraahdo b oo noo wadaayo 50. marka condition ayaan qabananaa if a haddii ay ka weyn tahay b print waxaa noo dhahdaa a is greater than b, a is greater than b. and if a is not equal b, a is not equal b, haddana waan qaadaynaa else if a is not equal, a is less than b, a is less than b. A is less than b, a is less than b. else if a is greater than b and a is not equal b and a is less than b. else b is less than a. aan fiirino logican. A is greater than b, صح؟ inaan soo baxday marka haddii aan dhaho ka waran is equal, bal waxa noo soo baxaan fiirino. a is not equal p, صح؟ anaa noo soo baxday waa sax, a iyo b isma leeka sababtoo waa taas. haddii aan siino this one ama I think
else baa noo soo baxaysa p is less than a. Yes, p is less than a. That's logic. way dhan tahay hadeer marka haddii aysan tan la egtaan weydo kana la check gareynayaa. haddii tan la egtaan weydana kana la check gareynayaa. haddii kan la egtaan waayana else ga la check gareynayaa. That's it. haddana waxaan doonaynaa insha allah inaan idin tusno sida conditionka loogu sameyn karo calculator. waa sidee baa layidhi marka insha allah waxaan idin tusaynaa calculatorkii. marka waxaan haystaa number 1 oo wuxuu ii la eg yahay float ay la garanaysaan oo functionkii ahaa pointska ugu dambeynayeen. marka waxaan gelinayaa halkaas waxaan gelinayaa enter your first number. halka kan operator baa leeyahay equal input enter interior operator. hadana kanaan soo koobi sidoo kale u baahanahay. yes number 2 halka kan waxaa ka dhigaysaa second. yes waxaan haystaa saddexdaas variable. marka hadda waxaan isticmaalayaa conditionkii ahaa if operator haddii uu la eg yahay plus condition markaad sameynaysid waa muhiim in aad isticmaashid labadan dhibcood. waxa weeye waa syntaxka Python. waxaa leedahay print num1 oo lagu daray num2 buu noqonayaa. if oo la mid ah else if operator is equal means kan soo koobiso halkan waxay noqonaysaa means isagoo dhan koobiso sababtoo ayagu dhowr jeer aan u baahannahay. halka kan waxaa ka dhiganaysaa multiplication halkan waxaa weeye bas insha allah. haddii aan hadda logic kan fiirino waxa weeye operatingka waxa weeye sida caadiga aad u garanaysaan haddii ay la socoteen casharadii hore operatorska waa soo qaadanay sida waxa weeye assignmentii operator baa jiray iyo waa plus minus multiplication and division. haddii aan fiirino hadda logican calculatorka kan wuu shaqeynaya. interior first number 4 interior operator minus interior operator interior second number 2 wayna minus 2 noo soo baxdo sax. tan way noo saxan tahay. haddii aan fiirino mar kale interior operator 5 enter plus 5 wayna 10 noo soo baxay sax 10. haddii aan rabno inaan multiplication ka fiirino wayna 2 multiplication 2 is 4. yes division 3 6 1. yes
that's it. Inta kaliya waa simple, waa easy. haddii aad si niyad leh aad u dhegaysatid, practice plan samaysid, inshallah waxaan rajaynayaa beetonka inaad wax fiican ka keeni doonto ilaa aad application ka samaysid inshallah biidnillahi ta'ala karim. anaguna waan rajaynaynaa inaan application full ah aan ku sameyno markaan dhameyno inshallah biidnillahi ta'ala karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. haddii aad ka faa'iiday waxaan jeclaan lahaa asxaabtada la wadaag ha kala fakhirin. waxa laga yaabaa dad u baahan oo muddo raadinayay inay helaan. waxaan kaa codsanayaa oo mar labaad kaa codsanaya mar saddexaad subscribe inay siisid. haddii aad ka heshay ama aad ka qabtid su'aalo commentiga ku reeb, share-na ku qabo, like-na sii, subscribe-na taabo kambalelkana taabo belka siduu uu kugu soo dhaco qofka ugu horeysa u noqoto daawada inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.